dhegaystayaal ka sokow faarax caytama iyo weerar bulxan labadii gabyaa ee qaar ka mid ah halxilaalihii maanso ee dhex maray aan toddobaadkii hore halkan idinka maqashiiyey waxaa iyaguna jiray laba kale oo ay isku da'ya waayaba ahaayeen halxilaalihii ay isu tabin jireenna uu soomaalida dhexdeeda aad ugu shaacay nin waa la wada yaqaanoo waa asaasihii iyo hoggaamiyihii dhaqdhaqaaqii gumaysidiidka ahaa ee daraawiisheed waa aabbihii waddaniyadda casriga ee soomaalida duqii maansada iyo maansayahanadeenna malahayga garatee waxaan u jeedaa sayid maxamed cabdilla xasan ninka kale inkastoo sida sayidka aanu magaciisu u dheeraan haddana wuxuu ahaa gabyaa si aada tixihiisa loo dhadhansado oo wadaadkana allaha ka dhigay aan cidna wax u ogayn wuxuu ahaa reer hobyood hal abuuradii wuxuu ku jiray sida weyn ugu dhowaa afkiisana ku daafici jiray sadanadii magaaladaas jeer ka jiri jirtay ee suldaan yuusuf cali oo kenadiid loo yiqiini uu asaaskeeda lahaa dabadeedna inankiisii suldaan cali yuusuf uu ka dhexlay waxaan u jeedaa gooni cabdi xaaji oo ka mid ahaa silsiladii maanso ee halac dheere la baxday raggii ugu cadcaddaa cali dhuux iyo cali sharmaarkana la jaalka ahaa inta gabayda midba hadduu maansada dhinac kaga caanbaxo ujeeddada faanka ayuu gooni ku caanbaxay maansada lagu xusuustana waxaa ugu fooleedsan geeraarkiisii la yaabka lahaa ee isagoo sadanadaa ku dhaadanaya uu ku soo gebagabayn jiray intaan dhoobta suldaankiiyo dhallin reer maxamuud iyo ilmo yuusuf dhex joogo dhafoor wiilan ka toogtay dhurwaagoo cuna mooyee mindhaageel kama dhiibo weligaa faan lamidihi maku soo maray weerar iyo faarax caytame waagay isxalxilaalayn jireen haddii ay meel wada joogeenoo madal weyn la isugu keenay ay isugu hal celin jireen sayidka iyo gooni iyagu waa ka duwanaayeen weligoodba inay ismaqlaan mooyee isma ay arag ma ahayn laba nin oo ay suuragal ahayd inay goob qura ku kulmaan maxaa ugu wacnaabaa waxay ku kala abtirsanayeen laba maamul oo aan isu soo geli karin intii ay jireenna ay colaad ba'ani ka dhexaloosnayd sida la og yahay wuxuu sayidku ahaa halgamaa dagaalla aan hakad lahayn kula jiray ingiriis talyaani xabashi iyo soomaalidii askarta u ahayd ee gumaystayaashu ay isaga u soo adeegsan jireen goonina wuxuu ka tirsanaa sadanadii hobyood ee talyaaniga gacansaarka la lahayd taasoo daraawiishii wixii ay u taagnaydba aan la tusi karin lana maqashin karin sidaa darteed labadoodu waxay kala filan kareeni waxay ahaayeen rag ay iska gabawaraan iyo geelal ay iska qaadaan oo qura taasina waxay sababtay in gabayada la isu dhiibo oo safarrada iyo socotadu ay gaarsiiyaan taleex ama hobyo iyo kolba cidda loola jeedaa halka ay ku sugan tahay mar walbana waxaa mudan in la xusuusnaado in dagaalkii daraawiishii dadawogii ay colka ahaayeen u dhexeeyey aanu ku ekayn hubka iyo rasaastee uu dhaafsiisnaa dirirtii afka ahayd iyo dacaayadihii ay labada dhinac isu tabin jireen ayaa ugu daraa halxilaalihii sayidka iyo gooni dhex marayna arrintaa ayuunbuu salka ku hayay sidaynu jawaabahooda qaarkood ka garan doonno haddaba wakhtiga barnaamijka oo kooban awgii ma suurowdo gabayadii sayidka ee xujada ahaa iyo kuwii gooni oo dhammaystiran inaannu wada marinee aan ka soo qaadanno dhowr tuduc oo ay labada nin isku halxilaaleeyeen iyo jawaabihii uu midkood waliba ka celiyey sayidka ayaa ku horreeyey oo tiriyey gabay la magac baxay cara ayaa sheega kaasoo uu halxilaalahan ku bilaabay niman yahow cidhaab laguma kaco curuf la'aaneede cod xiraala oo wada cajaba caynan ka higaadsho wax cadow madow baan arkaye cara ayaa sheega waa wax cad isla markaana madow yaa arkay oo maqlay gooni baase gartay wixii uu sayidku u jeeday wuxuuna ku furay indhaha oo qaybina ay madowdahay qayb kalena ay caddahay markaas buu yidhi annagaan cidhaabli ku kicin curuf la'aaneedee cod xiraara oo wada cajaba caynan ka higaadsho wax cadow madow sow indhaha ina carrow maaha ina carro wuxuu ula jeedaa sayidka oo hooyadiis carro seed magan uu ugu abtirinayo waana oraah colaaddii uu wadaadka u qabay ay ka keentaye aan furidda halxiraalaha waxba ku kordhinayn tuduc labaad oo gabaygaa ku jiray ayuu sayidku ku yidhi wax caanataynkiiya ka fudud caarada iyo baalka
culaysna loogu go'ay oo nafluhu caajis ka ahaaday caynkaasna anigaa arkaye cara ayaa sheega. markaas buu gooni furay, wuxuuna ku furay dembiga oo aan ishu qaban karin, marka dambena ciqaabta ka timaada aan aadanuhu u lahayn awood uu ugu adkaysto. wuxuu yidhi, wax caanataynkiiya ka fudud caaradiiyo baalka, culaysna loogu go'ay oo nafluhu caajis ka ahaaday caqlinimaan lahayn, haatan waa la cajabayaaye camcamada naftiyo waa dembiga laysku caajimaye nin cadaab ka baqayaa ma falo camalka qaarkiisa cawdiyo bilee eebba maa laga cabsoonaado. halxiraalo saddexaadna wuxuu sayidku ku yidhi, cawadii waxaan kaa tegayn cadowna kaa eegin oo waaga kaa cararayoo ku cidla'aynaya caynkaasna anigaa arkaye cara ayaa sheega. waa wax habeen oo dhan kula jooga, isla markaana haddii lagu soo maago aan ciidan kuu tarayn, markuu waagu baryana aadan indhaha saaraynoo meel ay ka baxeen aan cidina garanayn. kaana gooni wuu furay, wuxuuna ku furay xidigaha. markaas buu yidhi, cawadii waxaan kaa tegayn cadowna kaa eegin oo waaga kaa cararayoo ku cidla'aynaya caqlinimaan lahayn, haatan waa la cajabayaaye cudaarkiyo xidkaha kale miyuu carabku noo sheegi. gooni ayaa isaguna mar dambe wuxuu hubyo ka soo dhiibay gabay halxiraalo ah oo 16 tuduc ka kooban. waa cajaba sheega waa gabaygii la baxay ee naloogu warramay inuu sayidku wada furay, inkastoo wariyayaashu ay qayb yar uun nagu soo simeen. waxaa xujooyinkii gooni ka mid ahaa, weel caanihii laga dhamoo canugu heemaarshay oo ciidda loo daray afkii laga cashaynayey oo dhayiicaaddaa ka tahay. waa cajaba sheega. sayidka ayaa furayoo wuxuu ku furay candhada xoolaha la maalo oo inkastoo ay hoos u jeedo aan haddana caanuhu ka daadane markii loo baahdaba inta weelka lala galo dhay loogu tago. wuxuu jawaabtiisa ku yidhi, weel caanihii laga dhamoo canugu heemaarshay oo ciidda loo daray afkii laga cashaynayey oo dhayiicaaddaa ka tahay. waa cajab ilaahe, cid haddaad u baantayena tiri cara ayaa sheega. candho weeye oo waa naqaan caynka ay tahaye, adse haddaad ciniin tahay muxuu canugu kaa dheefi. bal u fiirso, furidii halxiraalaha sayidku kuma u ekaane wuxuu u gudbay shakhsiyadda gooni. waxaan u jeedaa meeliska jawaabtiisa ugu dambeeya ee uu gabyaaga ku leeyahay, candho iyo caanaheed iyo carruurna maxaa adiga kaaga dana marba haddaad madhala tahay. oo wuxuu ogaa kuna haadsanayaa inaan gooni dhali jirin. taasina waa oraaddii uu gooni u qabay ay ka keentaye aan furidda halxiraalaha lagama maarmaan u ahayn. halxiraalihii labaad ee goonina wuxuu ahaa, ceesaamo kuu dharahaya oon dhiira loo culanin, oon dhay casuusliya garoor caraf la waayaynin, aan naasacayntood lahayn. waa cajaba sheega. waa ceesaamo dharahaya oo aan weera lagu maalayn, ceesaamo aan naasa bartood lagu abuurin, haddana caanaha ay hidiyaani ay jaad walbaba yihiin. sayidka ayaa kaana furayoo wuxuu ku furay beeraha iyo waxa ka soo baxa, inkastoo uu gooni ku ceebaynayo inuu gafaye aan beer iyo ceesaan sina la isugu ekaysiin karin. wuxuu ku jawaabay, ceesaamo kuu dharahayoon dhiira loo culanin, oon dhay casuusliya garoor caraf la waayaynin, aan naasacayntood lahayn. waa cajab ilaahe, caynkaa waxaad mooday waa calafki beereede abiidkood riyaha caataday guni cisaysaaye. war ceesaan miyay tahay, maxaa calagga kaa yeelay? calaggu waa doqon, waa nacas saleella ah, waa eray iyo tilmaan ay labada nin isweydaarsadeen. waa jaa'ifo iyo jareexayn aan furidda halxiraalaha waxba ka tarayn, asii in doora inaga baraysa colaaddii siyaasadeed ee allaha u naxariistay ee u dhexaysay labada nin iyo labadii maamul ee ay ku kala jireen. taasina layaab ma laho, sayidka qudhiisu waa kii odhan jiray, rag haddaad colaad leedihiin ciidanse u weydo hadba waxaad ku ciilbixi kartaa ku cawo adduuna.